kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada wararka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sabtay madaxweynaha dowladda Jubbaland kana digay qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo isaga soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka dibna ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio. fadlan daawaday haddii aad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar Facebook-na noo follow garee. madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu dambeyn dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo isagoo isaga soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka soconayay magaalada Muqdisho kaasi oo u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. madaxweynaha dowladda Jubbaland oo kasoo duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadde ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland iyadoo weli shirkaasi laga soo saarin wax warmurtiyeed ah oo shirka golaha wadatashiga ku saabsan. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in madaxweynaha Jubbaland uu shir jaraa'id uu qaban doono saacadaha soo socda magaalada Kismaayo ku qaban doono isagoo faahfaahin doona arrimaha xasaasiga ah ee la isku mari waayay. madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa si cad u diiday in dowlad goboleedyada loo sameeyo hal sano oo muddo kororsi ah kadibna la qabto doorasho qof iyo cod ah bisha November ee sanadka soo socda 2025. qorshahaas oo fila Soomaaliya ay gadaal ka riixaysay wuxuuna sheegay in aan loo baahnayn in wax muddo kororsi ah loo sameeyo dowlad goboleedyada dalka ka jira loona baahan yahay in ay qabsadaan doorashadooda sidaasna ay xukunka ay ku joogaan nin walbana wixii calafkiisa ah uu qaado. Jubbalandna inay ka go'an tahay in ay qabsato doorashadeeda oo iyadu ay u madax bannaan tahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Jubbalandna ay u ogol yihiin. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowlad goboleed kasta laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah doorashooyinkoodana loo madax banneeyo maadaama aan horey loogu heshiinin wax muddo kororsi ah. muddo kororsiguna oo abuuraya qalalaasa siyaasadeed taasina aysan dani ugu jirin dowlad goboleedyada dalka ka jira. madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrinta doorashada qof iyo codka isagoo sheegay in doorashada qof iyo codka aan laga hadli karin inta ay maqan yihiin Puntland iyo SSC Khaatumo taasina ay u baahan tahay madal loo wada dhan yahay oo la wada fadhiyo. tagista madaxweynaha Jubbaland uu kasoo tagay shirka golaha wadatashiga qaranka iyo go'aankiisa ayaa muujinaysa in shirka uu fashil ku soo dhamaaday. shirka madasha wadatashiga qaranka ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho maadaama ilaa iyo hadda aan laga soo saarin wax go'aamo ah iyo waliba warmurtiyeed rasmi ah oo ku aadan waxyaabaha lagu heshiiyey ama laga wada hadlay. madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si wadajir ah u soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimo ku aadan shirka golaha wadatashiga qaran iyagoo ka digay in lagu dhawaaqo muddo kororsi hor leh oo dalka ka abuuri kara jahwareer siyaasadeed. saddexdan siyaasi oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha fila Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga digay in uu ku dhawaaqo wax muddo kororsi ah waxayna shaaciyeen in aanay marnaba aqbali doonin muddo kororsi. sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu marmarsiinyo uu ka dhiganayo arrinta doorasho qof iyo cod ah balse ujeedkiisu uu yahay muddo kororsi oo kaliya. waxa aanu ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u cadeynaynaa inaana marnaba aqbali doonin muddo kororsi aan shalay ka diidnay madaxweynihii hore wado kasta oo sharci ahna aan ku hor istaagi doono damaca uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku hoosaasinayo shacabka isagoo adeegsanaya kelmadda xaq ah oo ah in doorasho qof iyo cod ah wadanka laga qabto laakiin uu ku doonayo baadil muddo kororsi ah taas oo ah taatiko uu ku soo hungoobay madaxweynihii ugu horeeyay xukunka isagoo oo hore noola diidanaa ayuu maanta doonayaa inuu tii aan farmaajo ka diidnay oo isagu sameeyo. sidaasi waxaa war-saxaafadeedkooda ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa la raaciyay dowladnimada waxaa aas u ah ku dhaqanka dastuurka iyo sharciga xilalka siyaasadeedna waxaa asal u ah sharciyad. waxaanu si adag u diidanahay muddo kordhinta uu madaxweynuhu ku qasbayo madaxda dowlad goboleedyada ee muddo xileedkoodu dhamaaday taas oo uu kaga bedelanayo in muddo kordhin loo sameeyo isaga xilliga
xilhayntiisu marka ay dhammaato 15 bisha May 2026 taasi oo aan marnaba sharci ahayn. Sidoo kale waxaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay bogaadiyeen tallaabada uu qaatay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam uuna ku diiday qorshaha muddo kororsiga ah ee Villa Soomaaliya gadaal ka riixayso. Waxaa kale oo ay ugu baaqeen lafta gareen qoorqoor Cali Guudlaawe in ay ka fiirsadaan tallaabada ay qaadayaan si aysan qayb uga noqon muddo kororsi cusub. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah isla markaana laga warsugayo go'aanka golaha wadatashiga qaranka ee 5tii maalin ee la soo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho. Fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook-ga nagu soo biir oo ku soo biir barahayga bulshada si aad markasta ula socotid wararka iyo warbixinada halkan aan idinku soo gudbino.